magaalada gudaheeda dawladaha hoose ayaa xuquuq iyo xaq u leh inay qabtaan marka dibal hawlaha guud idinku weydiiyo sababta u qabanayaan wax aan laga codsan oo aan meeyarka ama gudoomiyihii golaha deegaanka ka codsan detaydika u bannaan aan labadii cisho u horeysay maalin bay yimaadeen dib umaanu arag hadday nashqadayn samaynayaan dee waxa weeyaan dad barayfidaaba nashqadayntii qaar wadaan oo rabaan inay ka iibiyaan oo ay dadka yidhaahdaan noocan aan u dhisayna marka hadda qaybuun bay ka noqonayaanoo yaa laakiin xuquuqda dastuurka iyo xeerarku waxay siinayaan golaha deegaanka ee Hargeysa dawladaha hoose ayuu siinayaan wada shaqayn waxay naga dhaxaysaa wasaaradda hawlaha guud wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradahaas umay ka mid tahay wasaaradda hawlaha guudna marka anigu 30 sanadood khibrada ayaan u leeyahay engineering iyo designkeeda iyo dhismaheeda u malayn maayo cid xagga nashqad ama dhisme iga khibrad badan oo maanta aan ku tuhmayo oo badani inay jirto maybe waxa laga yaabaa ilaa 20-30 qof inay jiraan maanta yaa oo jooga waddanka gudihiisa inta Hargeysa aan ku aqaano intaan aqaanaan ka hadlaya waxaan ku noqonayaa kelmadeedii ahayd maamul daadejin wax allaaliyo wax hawlaha guud wixii aanu dadka annaga hor joogna annaga u tagna annaga la shaqayna annaga qashinkooda ka gurna annaga kii dhibaataysan dhibta la wadaagna hawlaha guud waxay heer qaran bay taagan tahay inay heer degmo ku soo noqoto maaha marka su'aashaas bal iyaga